inta aydan diinta qaadanin horta shakiya shaki ma soo marteen ya ninkan shaki soo marin diintu sheeganayo su'aal bay u baahantay marxalad aad shakiday oo ilaahay ka shakiday oo rasuulka ka shakiday oo tawxiidka ka shakiday oo malaa'ikta ka shakiday oo mabaadiida ka shakiday waaweyn ma ku soo martay sidaas daraadeed buu dadka mu'miniinta wuxuu ugu yeedhayaa inta aydan diinta qaadanin horta shakiya shaki ma soo marteen ya ninkan shaki soo marin diintu sheeganayo su'aal bay u baahantay marxalad aad shakiday oo ilaahay ka shakiday oo rasuulka ka shakiday oo tawxiidka ka shakiday oo malaa'ikta ka shakiday oo mabaadiida ka shakiday waaweyn ma ku soo martay idma soo marin عبد السعيد أكتيس مرك عامتي عام يستطيع بل هذا الكيسان آخرين آذان كده قيبت الله بعد المؤمنين واكوا لبو شك بحر إيمانك ورمحوها كضياش كلابادنا محوه شك بحر طيب waxaa jira buuri dad ay ku adag tahay in ay rumeeyaan wax aysan ku qancin kadib markay su'aalo iska weydiiyaan dadka noocaas ah oo runtii aad u yarina waa kuwa dhab ahaan ereyga iimaan uu ku rumoobayo dadka shakiga maray shakiga ka gudbay iimaanka saa ku qaatay baa mu'miniinta dhabta ah dadkana waxay leeyihiin tilmaanta lagu yaqaano culimada dhabta ah oo ah waxa loo yaqaan shaki cilmiyeed waxa loo yaqaana shaki cilmiyeed ashakku ilmi waa shakku ilmi waa inaad marka hore shakido marka kadib shakiga su'aalahaad isweydiisay kadib ay ku gudbiso iimaan markaasaad mu'min dhabata iimaanka dhab ahaan qoladaas ku rumoobay wuxuu yiri culimadani waa kuwa rumaysan in aqoonta iyo iimaanka shaki ka horeeyo oo qofka si loo yiraahdo wuu rumeeyay waa in waxa uu rumaynayo uu markii hore shaki ka qabay oo su'aalo iska weydiiyay tusaale ahaan sida la og yahay qofka caqiido mid kale ku doorsanaya wuxuu marka hore maraa marxalad shaki oo uu ka shakiyo caqiidada uu ka tagayo iyo xataa midda dambe ee uu qaadanayo shakigana siduu sheegay xujjatul islaam al-Ghazali waxa lagu gaaraa xaqa waayo ruuxa aan shakin ma eego kan eeginna ma arko kan arkinna wuxuu ku waaraa indhala'aan iyo baadi say isu dabataa la marka ya shaki marka hore sooma isweydiiyo raadi marka kadib xaq arag marka kadib rumee markaas saxta iimaankaaga dhabta markaas waxa taa ka cajiibsanayd mabda la yaqaanee laakiin waxa cajiib ah inuu quraanka wax uga helo inuu quraanka wax uga soo saaro yiraahdo quraankaaba ku tusay in la shakiyo marka hore oo mabda'aas quraankaaba taqriirinaya masaladan la yaab leh karo oo aayadaha quraanka iyo sidoo ugu ciyaaraya iyo tafaasiirta uu siinayo iyo meeshuu dajinayo cid uga horeysay oo uu ka qaadanna ma jirto isaga ra'yigiisa jiran iyo aqligiisa jiran ee wasaqdaasi ka buuxdo yuu quraanka doonaya inuu ku fasiro sidaas daraadeed meel alla meeshuu doonuu saaraya si alla siduu doonuu u fasiraya tafsiir culima tirina u noqon maayo halkaas marka waxa ka timid quraankii kariimka iyo aayadihiisii oo aad ugu ciyaaray tafsiirkooda